عيشتيدا وعنيه قاب كذا لو دقي اتما ايدا اركيو سيدا في أرحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن مركلي فيديو اسم جنة كان نقل سعتان وحباب فاميلي نقول أم السنس ودبادة مال وناكسن هذين وناكسن صباح وناكسن ذب وناكسن عسل وناكسن كل شيء وناكسن أصحابتي واسم سود دبادة أصحابتي اللي جوكس كل سود دبادة لما أنتي مسود دبادة لما أنتي بدو جالها إن شاء الله هنوضع قصة كور فضل الجنة كده كل سبسكرايب نوصل لايك شير كم صحبة لو هذا ما صدقها سبسكرايب تقول سعر إنه لايك جري إنه شير جري دمتي مسيتي دمتي بدو جالها إن شاء الله هنوضع قصة كهر مركز إيميل كستب ودعي قف كستو مسلمة ونجا حنوسانية قف كستو مسلم ونجا حنوساني إنه له عفمة تعمل نوسية إن شاء الله وحنوضع قصة كده عدلك التركي جاه لو هر تركي السعودية إن شاء الله قصة وحي كل عادي وحي كده عادي وقوي جدلك التركي وحي كل عادي قبل لكم مع السلم دوكان أو أفري لواتين جرا waxay ahayd hooyo leh laba cunug laakiin ilmaheeda mid ka mid ayaa ka dhintay xanuun ku dhacay daraadeed marka waxa uu joogtay hal wiil oo ah 5 jir ayadii odageedu waxay ku wada noolaan isla waqooyiga dalkaasi waxa dhacday wixii ka shaqeynaysa dukaan iyo ayadii odageedu wixii lahayn dukaan ku gado hilibka mar badan waxa dhacay in isku dhacaan oo waliba booliska ku dacweyso in badan ay boolisku sheegto laakiin maalintii dambe waxay sameyseen arrin la yaab leh oo فجأة كنا قصة دلك يعني أو مجالد إدقنات أما تولد إدقنات أما دلك تركي السؤال وين كانين تاسو هاد نينك أيضا مركب مرمان قبضت إني تشي أنت سنينك الدلنكار وحاجر مرنا في بدن أو أيضا أضيع ذيك الدحية واللي بقى مرنا أدو حب بدن أو إلا أيهار مرمك قارئين اللي سكوك عن قاعد جاري جري مركب دم مركب حيقو آستين أضيع disho waliba aysan cidna aysan u sheegin laakiin gadaal dambe wax kasta iska bedeli doonaa waxa dhacday in odageedii ay dishay waliba ay soo qaadatay mindidii ay ku iibin jirtay hilibkii deedna ay dishay marka odageedii ay dishay waxa dhacday in ilmaheedii yara uu yiri hooyo waxaan u baahnaa aabahay markasta ku leedahay aabaha safar buu jiraa يعني ما هبينك ودن ay ku dheys aaba safar buu jira ilmihii asigoo iskuul jira hooyadii dishay aaba wafaatay Soomaaliya marka habeenka dhan wuxuu dhahay markasta aabahan u baahanahay markasta aan waxaan dhahay tira aaba safar buu jira aroortii markuu waaga bariyay ilmihii maxay tadgeysay iskuulkii bay waxay wacday booliska waliba ay ku tiri gurigeyga ma shaqo ka jirto ka dhacday soo marka waxaan u baahnaa in la isoo gaaro hada waa ayada qofka booliska bacanayso dareema isla markii booliska markay yimaadeen wax kasta si filayeen ma aysan noqonin oo markay guriga yimaadeen waxay ku tiri waxaan rabaa inaan idin sheego soo marka diyaar matiin booliska waxay ku dhahdeen ha noo sheeg arrinta waxay tiri guriga gudaha gala qol hebel gala waxa ku jira odagaygu meed ah waliba aniga dilay ku tiri xilligaas saraakiisha booliska sheegayaan markaas waxay gacanta ku haysatay kafeegida iska cabisay qof dambi galay ama qof ka dhintay ama dhibaato geystay ama xitaa boolis xirad ka cabsanay meesan baahna lagu yiri way galeen booliskii waa la soo fiiriyay xaqiiqay noqotay inuu dhintay waliba waxyaabo ku dishay egta ka yeelaan isla markiiba ayada la qabtay sabar waxa arkaysa ayadoo booliska wadaan oo qosleysa oo wax muruga isaga muuqaninba waa la xiray ninka waxaa la bilaabay in la baaro korkiisii oo maxay dhaawacyada iyo sida loo dil wax dhan la baaro waxaa lagu arkay dhaawacyo waaweyn oo fara badan u geysatay iyo waxyaabo badan isla markiiba waxaa la yiri maxaa kugu qasbay inta badan waxay tiri inta badan caalamka waxaa ka dhacda ama dalka Turkiga ka dhacda in nimanka ay dilaan naagaha ay qabaan ma dhicin tiri naag dishay ninka qabay yani oo sanadadan ninka qabay dishay wali muran dhaxmaray markasta oo muran dhaco wax dhinta waa hooyada qoyska laakiin ma dhinta aabaha qoyska marka ma dhici kartay tir waxaan rabaa inaan u aaro yani haweenweynaha ku nool dunida habeenka dunida rabaa inaan u aaro on tusiyo tir gabadh inay leedahay baabur inay wax dili karto inay subhanallah in wax la dili ma faan noqotay
booliska markii baaritaano fara badan lagu sameeyo oo maskaxdeeda la baaro waxaa caddaatay in maskaxda aysan ka jirinin weliba ay tahay qof caafimaad qabo. yacni badanaa markasta markay dilal ka dhacaan caalamka waxaa la yirahdaa qofku marka hore maskaxi ahaan ha loo baaro, after marka maskax ahaan loo baaro oo maskaxdiisa la yiraahdo wax ma qabta ama problem ma laha nadiifa maskaxdiisa kadib wax xukun ku dhacaa. markii maxkamadii waxay tiri maxkamad markii la saarayo oo maskaxda nadiif qabto soo xaqiijiyo baa qareenkeeda u tagay wuxuu ku yiri sida runta iyo xaqiiqda jirta noo sheeg si aan maxkamadan aan ula tago wax aan kugu badbaadin karo. waxay tiri xaas maad leedahay ninkii yani qareenkee ka hadlaayo yaas buu yiri xaaskaada waxaan kula talin lahaa sir haddii aad dhibtid inay adigana ku disho. marka waxna ii doodin waan ku faraxsanahay kamana xumi, laakiin tan kaliya aan ka xumaa waxay tahay ilmahayga oo bilaa hooyada iyo bilaa aabaha noqonaya weliba ka aaba muusan u ahayn oo aabas qajaan buu ahaa laakiin bilaa hooyada noqonaya. isla markiiba gabadh waa la xukumay waxaa lagu xukumay xabsi daa'in. laakiin su-aasha kaloo imaato waxay tahay gabadha markii la xukumay oo xabsi daa'in lagu xukumay waxaa soo baxday arrin kale oo ah gabadhan markii baaritaanka dib loogu laabtay oo dad yacni oo khubro kale ay baareen waxaa caddaatay gabadha inaysan dilka geysan laakiin ay jiraan wax ku qasbayo in dembigan ayada ay qirato weliba yacni hubkii lagu dilo ninka ay gacanteeda ku qabato waxaa jira qof ku qasbayo oo weliba yacni ku cadaadinaya markii baaritaankan lagu laabtay oo maxkamadda la fiiriyey gabadha si u hadlayso iyo markii ay dhehayso yacni hadalka ugu dambeeya oo ahaa ilmahayga hooyada iyo bilaa aabaha noqonay bisan ka xuma markay dhehayso waxaa la yiri waxaa jiro gabadhan shay ku qasbaya in ninkan dembiga ninka aysan dilin inay dembiga qirato marka waa in baaritaano kale lagu sameeyo si loo xaqiijiyo. isla marka waxaa la bilaabay in jaarkii ama dadka dariska ah la weydiiyo la yiraahdo dadkan muran iyo dagaal iyo maa ka dhexeeya, laakiin dadka dariska ay dhaheen wax muran iyo wax dagaal kama dhexeyn. isla markiina mid kamid ah gabdhihii dariska la ah weliba la deganaa yani dabaqa ama blog ee deganaa la deganaa oo la deganeed waxay tiri maalinta aad saacadaha aad sheegaysa inuu dilka dhacay waxaa jiro 2 qof oo guriga gashay weliba 2 qof markii ay gasho waa ayada iyo qof kale yacni inay guriga galeen qofkii kale uu soo baxay ayada aysan soo bixin weliba qofka kale wejigiis uu xirnaay uusan feedneen. waa fahanteen. isla markii boolisku waxay bilaabeen shaki in kaamirooyinka dib loogu laabto waxaa la aqoonsaday kaamirada ninka ay qabato wuxuu noqday nin la yaqaano oo weliba meeshaas yacni ama deegaankaas caanka ah. isla markiiba ninkii waa la raadiyey waa lasoo qabtay asigoo baxsad ah magaalada ka baxsanaa lasoo qabtay. waxaa la yiri noo waran maxaa samaysay xilligaas iyo xilligaas wuu inkiray laakiin boolisku waxaa yiri cadeymo fara badanaa lagugu haaya weliba in cadeynayo accidentka aa geysatay ama dilka aa geysatay. isla marka wuxuu bilaabay inuu yiraahdo qofka dilay ninka waa aniga xaaskiisana aniga ku qasbay inay qirato dembi aysan lahayn. way jirtaa in ayada ninkeeda ay murmi jireen ay dagaali jireen xitaa waxyaabo fara badan isku sameyn jiray xilliyada qaar u gacan qaadi jiray laakiin weligeed kuma aysan fikirin inay ninkeeda disho. waxa kaliya oo ninka dilay waa aniga waxa ku qasbay in dembiga qiratan waa aniga. waxa ugu booteen waxay tahay in haddii aniga aad sheegtid jiraan dad igu tiim ah oo kusoo raadin doona kuna dili doona ilmahaaga yarna dili doona saas daraadeed marka ku qasabtay in ay qirato dembigii. hubka aan ku dilana oo mindida ahayna aniga gacanta u geliyay gabadha oo dhahay yacni hubkan laazim waa inaa qabsatid. isla markiiba waxaa la bilaabay in gabadhii xabsigii laga soo bixiyo because 6 bilood ay kusii jirtay inta baaritaanada ay sii socdeen 6 bilood xabsi kusii jirtay in xabsigii laga soo bixiyo ninkaana la geliyo. laakiin ninka waxyaabaha uu sheegay waxaa kamid ah ninka waxaan rabay naagtaanan jeclaaday ninka marka si kale oo aan uga furo kara ma jirto naagtaan waxaan rabay in aan guursado waan jeclaa asigana muusan fureynin saas ay ku qasabtay anigana waxaan rabay inaan dembi geysto si anigana xabsi la igu xukumo oo iyada aan xabsiga dhexdiisa u wada noolaana. kaas adkeysigii iyo wasaqnimo u dhaafay. isla markiiba ninkii la xukumay gabadhi saasa loogu soo daayay xabsiga because magdhawaana la siiyay maadaama 6 bilood dembi aysan ayada lahayn weliba lagu qasbay la yiri ilmahaaga yara la dilaa saas daraadeed u aqbashay in dembi aysan lahayn ay qaadato. saasuu ninka ku gala xabsi daa'in gabadhina saasaa magdhow lagu siiyey.
marka meesha waxay tahay su-aasha taalo hooyo kasta waxaa laga raba waxay tahay in ilmaheeda daraadiis u mari karto dhibaato, in ilmaheeda daraadiis yacni waxyaabo fara badan u sameyn karto. ma ahan in ilmaha la dayaco jidadka looga tago, laakiin markastaba ilmahaaga saa ku badbaadineed go-aankooda waa inaad qaadatid. saanayna ku dhantahay qisada dhammaantii waa masantii dhammaantiin waa idin jeclahay. insha allah please channelka subscribe ha noola saar, dadku subscribe ku saareen, ha like gareeyaan, ha share gareeyaan. dhammaantiin waxaa idin wada leeyahay peace and love.